Hello, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawow Koranta Academy mar kale iyo cashar kale oo cusub. Waxaan rajeynayaa in aan muddo badan kala baadnay, laakiin waa mashquulka xaaladaha coronavirus iyo weliba Ramadaan oo soo gashay. Waxaan jeclahay caawa inaan halkan ku wadaagno cashar ku saabsan sida loo isticmaalo softwareka Audacity oo ah softwareka codka lagu edit gareeyo. Muuqaalkan waxaan ugu talagalay wariyaasha oo dhan iyo qof kasta oo doonaya inuu cod duubto, cod soo jarjarto. Duubidda codka waxaa lagu soo duuban karaa mobileka, waxaa lagu duuban karaa record, yacni wuu fudud yahay. Hadda mobilada Samsung-ka iyo iPhone-ka labaduba iyaga ayaa ka yacni quality badan, rekoorro badan oo codka lagu duubto. marka codkaaga soo duubatid si aad u edit garaysan lahayd ayaan doonayaa caawa inaan isla aragno ee ila soco. marka koowaad waxaan soo furanayaa, anigu waxaan isticmaalayaa computerkan isticmaalaya waxa weeyaan MacBook, laakiin de software si kasta computer kasta isku sib u shaqeeyaa. Softwareka isticmaali doono waa softwarekaas Audacity marka aad ku dhufatid waxaa kuu soo baxaya calaamadaas uu leeyahay waa for free. meel kasta ayaad kala soo degi kartaa. Wuxuu isaga jiraa online, ku isaga jiraa isagoo free ah, marka waad la soo degi kartaa for free. any type of computer na operation system na wuu ku shaqeynaya. Linux, Windows, Microsoft iyo Macintosh mid walba ku shaqeynaya haddaad soo furatid. Softwarekan bodygiisa wakaas interfacekiisa koowaad ee hore waad ku duuban kartaa intaad microphone ku xirtidna waa ku duubi kartaa. isagana banaankana flat microphone-kana wax buu ku duubaa, laakiin flat microphone-ku waxa la yiraahdaa microphone-ka computerku uu leeyahay banaanka ah. waa adiga arkaya halka built-in microphone. Computer-radan laptop-yada badanaa waliba waxaa lagu keenaa microphone ay yacni ku dhisan, waana midka marka aad ku hadlaysid Skype ama aad isticmaalaysid software-radan lagu wada xiriiro oo computerka isticmaalaysid codkaaga qaada. haddaan marka tusaale hadda ku dhufano waad arkaysaa codkeeni wuu duubaya, wakaasa wave-ka halkan ka soconaya waa codkeeni oo duubmaya weeyaan, wuu duubaya codkeeni. marka meelahaas uu ku yaalaa, wuxuu ku yaalaa kaamirada agteeda. haddaad u soo dhawaado wakaas codkeega kor buu usii qaadaya, haddaan ka fogaadana wakaas levelka uu ku duubaya wakaas. marka wuu ku duubi karaa built-in microphone-kana. haddii aad banaanka ka aad ka isticmaalaysid wax soo galayna isagana wuu ku duubi karaa, halkaas aad furi doontaa, wuu kusoo bixi doonaa. marka aynu kow ka bilowno, beginner aan ku bilowno. softwarekan wuu fudud yahay, waa simple. iska xireyna codka hadda noo duumay. softwarekan markuu saa ku yahay, haddaad doonaysid cod duubtid, whether it is some audio from outside or built-in microphone aad ku duubaysidba, record baa leedahay. halkaas calaamada cas haddaad aragtid waa record baad leedahay. codkii wuu duumaya. markaad record tiraahdid halkaasaad ka arki kartaa codka hadduu kuu duumayo. waxaad ku ogaan kartaa yacni levelkaas wave-ka ayaa samaysmaya ayaa ku tusaya inuu codka duumayo. markaad aragtid inuu wave-ka kuu socdo ama ay daqiiqadahaas ordayaan oo socdaan, wuu ku duumaya codkii. markaas waad xaqiijin kartaa inuu codka kuu duumayo, waad garan kartaa. haddaan kuu soconayn ama halkan ay eber tahay oo cas tahay, ma ku duubayo codka. sida tusaale ahaan oo kale iminka aan iska xirno microphone-ka, waxaan xiri doonaa built-in microphone-kan xiri doonaa. microphone levelkan iska xirayaa 0. okay, record baan leeyahay. okay, aan iska hadlo, daqiiqadihii way socdaan, laakiin halkan wave ma socdo, wave-kii ima socdo. sababtuna waa maxay? microphone-ka iga xiran. marka si aan taa u xalliyo waan iska stop garaynayaa. dabeedna microphone-ka wakaas levelka microphone-ka halkaas ku saaran yahay, waad dalacanaysaa levelka ama waad dheeraynaysaa meesha artid baad geysan. kadib kan iska xidh daarti ama waa sii duuban kartaaba. kan iska xidh saan ugu jeclaa waan iska xiraa. kadibna record baan leeyahay. waka hadda codkayga caadi buu duubaya, wakaas levelka wuu socdaa, waa la arkayaa. marka codka kuu duubo, saas codka ugu duubo ayuu ku yacni okay ku yahay, codka saas kugu socda. marka codka markaad duubatid space-na waad ku stop garayn kartaa, laakiin si aan ila socotaan aad u aragtaan meesha aan ku dhufanayo, halkaasaan ku dhufanaya, stoptaas ayaan ku dhufanaya. kadibna marka codka asaas u balay, markaan rabo inaan dib u dhageysto codka, halkaasaan tegaya. haddaan bilowga tegayo, xaggaasaan ku dhufanaya, kadibna waan balay gareynayaa. waka hadda codkayga caadi buu duubaya, wakaas levelka wuu socdaa, waa la arkayaa. marka codka kuu duubo, saas codka ugu duubo ayuu ku yacni codka wuu socdaa. hadda kan waa codkayga hadda aan duubay weeyaan. stop baan leeyahay. okay, stop waan joojinayaa. waan dhageystay codkan. hadda tusaale ahaan oo kale
shaashadan computerkan wuxuu leeyahay optionno fara badan buu leeyahay. waan u imaan doonaa qeybaha kala duwan shaashada codkii oo dhan hadda mooda arkayno. waxaan arkaynaa 14 second ayaan arkaynaa oo codkeeni ah, laakiin codkeena oo dhammaystiran waa 20 second markuu dhammaystiran yahay. haddaan rabo xagga ugu dambaysa inaan tagana xaggaasaan ku dhufanayaa, haddaan rabo bilowga inaan tagana xaggaasaan ku dhufanayaa. markaa rabtid inaad dhexda ama edit garayso ama meel dhexe aad dhigtid, waad soo qaadaysaa calaamadda castlekaas, calaamadda ayda ah ayaad halkaa ku dhufanaysaa meesha rabtid inaad dhigatid, kadibna play baad leedahay. marka codka markaad duubatid, codka halkaas kaaga bilaabaya, ama halkaasaad ku dhufanaysaa play baad leedahay. ayuu yani okay ku yahay codka halkaasaad ku dhufanaysaa, stop baad ka leedahay oo halkaas ku joogaa. that's it. kaas waa playdii iyo recordkii. waxaa kaloo uu leeyahay softwarekan haddaad doonayso inaad edit samaysid oo aad codka wax ka saartid, si simple ah cursor-kaa dhigaysaa halka aragtid inaad saartid, highlight baa saa u saaranaysaa, kadibna delete baa taabanaysaa, calaamadda delete ee ku taalla keyboardka ayaa taabanaysaa. wuu ka baxaya codka halkaa ka bilow play marka codka waa uu ka baxay. soo celi control z baan ku soo celinayaa ama undo. okay, delete undo daasaan ku soo celinayaa, kadibna play garee yani okay ku yahay codka saas uu soo qab. intaas delete baan leeyahay, waan ka saarayaa meesha, kadibna wakaasa saas uu soo saaraya, uu ka saaraya meesha, uu ka delete gareynaya. saas codku ugu duubo marka delete waxa weeyaan waa sida simple ka baa loo delete gareynaya. waxaan duubanaynaa cod kale oo aan practice ku qaadano ayaan duubanaynaa. close record aan dib ugu soo celino si aan u hubin ila socotid. record baad leedahay, codkii baad duubanaysaa. okay, 9 6 7 4 3 5 2 1 8 5 okay 10. okay, halkan waxaan ku duubanay xisaabtii oo aan isdaba marmarinay si aan ugu qaadano practice oo u dhig karayno. codkan hore ee bilowga ah, codkii baad duubanaysaa. okay, inta hore bilowga ah markaad tiraad iska jartid, highlight halkaas aad qabanaysaa, highlight ba saaraysaa. highlight-ka si aad u saartid, marka click markaad siisid mouse-kaad riixaysaa, kadibna saasaad u jiidaysaa, dhinacaad u jiraysa baad jiidaysaa. highlight markuu kuu fuulo delete baad leedahay, kadibna play 9 6 7 4 3 5 2 1 8 5 okay 10. okay, 5 baan laba jeer duubnay, 5 baan laba jeer duubnay. marka 5ta ayay okay intaas waa iska delete gareynaa, highlight baan saaraynaa, kadibna delete baan leenahay, saasaan delete u leenahay. wuu ka baxay. si marka codkan aan isugu aadino oo aan 1 ilaa 10 isugu aadino, simple waxaan sameynaynaa. okay, 1 baan raadinaa xagee ku jirto, 7 4 3 5 2 1 8 okay 10. okay, hal baan duubay, marka 1 ma aanan duubin. si aan 1 u iraahdo halkaasaan dib baan u duubay oo sii duubay oo kusoo xiri karaa. xagga dambe click siinaysaa, kadibna record 1. okay, halkaan iga jar, iga delete garee. okay, halkaa marka calaamad baa ku fushay, click si. haddaad calaamadda click siin hadhow bay ku dhibi doontaa, meelaha dambe arki doonaa. click si. okay, 1 soo qaado, 1 kadibna cut soo dheh, maqaska calaamadda maqaska ee cut xagga ugu horeysa imow, xagga dhig, kadibna paste dheh. paste waa calaamadaas. okay, 1 9 6 7 4 3 5 2 taas. okay, 2 heedaa saar, hubi. markaa hubinaya, markaan play gareynaya space baan taabtay, cut dheh, xaggaa dhig, calaamadda xaggaa dhigo, kadibna paste dheh. okay, play garee 1 2 9 6 7 4 3 markaa 3 soo jaranaysid, halkaasaa heladka saaraysaa, cut baad leedahay, 1 2 xaggaasay 3 leedahay, paste copy weeyaan taas, sorry, paste taasa. haynoo play garee 1 2 3 9 6 7 4 wataa noo soo qaad, cut dheh, 1 2 3 4 wataas halkaas weeyaan, halkaasay leedahay. macnaha waxaan tirsanayaa calaamadahan aan tirsanayaa 2 sababtoo codkayga saas u samaysan yahay. paste baan leeyahay. okay, marka 1 2 3
afar sagaal okay 5 soo qaado sida caadiga shan sagaal okay waayahay waan dhameeyay marka hadda inta dambe waa dheeraad haylaad iska saar delete iska dheh marka codkan xagga ugu horeysa uga bilowdid calaamadda xaggaas ku dhufo balayde okay kow labo saddex afar shan lix toddoba sideed sagaal toban okay waaye halkaa markay codka saa u dhigaraysay waxaad u baahan tahay inaad save garaysid si aad u isticmaashid softwarekan wuxuu kaga duwan yahay software kale oo laga yaabo inaad aragtay ama taqaanid oo codadka ah laba save buu leeyahay mid waxa weeyaan as a project inaad u save garaysid oo shaqadii ay kugu socoto weli aysan ku dhammaan hawshii iyo inaad final production final save-ka aad samaysid oo aad export as a mp3 or wave or wixii aad doontid aad u samaysid si aad u save garaysid marka file baad tegaysaa kadibna export as a mp3 export as a mp3 halkaas ku dhufan magaca aad doonaysaad ku qoranaysaa okay test 1 waxaan dhigan doonaa folder and desktop-ka ku qoranay oo ah test okay test 1 say export dialog-gana kuu saaraya yarka ah oo ah aad ku qorqori kartid haddii hees ay tahay oo kale waxaad safgarinaysid ama yeerka iyo programka aad ku sharaxid laakiin baahi badan looma qabo okay iska leedahay okay wuu save gariyay marka halkaan marka hada wuu dadajiyay maadaama ay 10 second tahay laakiin markuu codku badan yahay waxa laga yaabaa inuu ilaa waqti yar oo qaato ilaa 30 second meelahaas inuu qaato si marka aan u hubino wixii aan duubnay aan soo furano file-keeni wuxuu ku jiraa file-keeni desktop-ka test okay wakaas aan play garayno kow labo saddex afar wakaas shan lix toddoba sideed sagaal toban intaas weeyaan marka halkaas aan caawa ku joojinaynaa haddii alla idmo haddii ilaahay idmo qayb kale ayaan duubi doonaa oo halkaas aan kasii wadi doonaa oo ku saabsan sida loo sameeyo laba layer oo kala hooseeya oo aad soo kale cod iyo music isku dul saari kartid sida aad uga saari kartid shanqarta sida aad yacni u gaagaabin kartid qaarna u dheerayn kartid sida aad u move garayn kartid oo macnaha soo kale qaybta intaad qaadid aad adigoo aan cut iyo copy iyo delete midna isticmaalin aad meel kale u geyn kartid oo move aad u samayn kartid ayaan insha Allah samayn doonaa sida halkaan wax kala dhex gelin kartid waan arki doonaa marka halkaas ku soo gabagabeynaya qaybtii caawa aad baad u mahadsan tahay wixii aad fahmi weyday tala iyo tusaale ama commenti ah ama su'aal aad qabtid xagga dambe waxaad igu dhaafi kartaa commentiga ama email igu soo dir aniga ayaa ku soo jawaabi doonaa mahadsanid